بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا جنالك إنجنير محمد إبراهيم عمر. waxaan maanta ka hadli doonaa daraad waxaan ka soo hadalnay formula of brace continuous tense waxaan ka soo hadalnay waxaan subject plus am slash s slash r plus verb plus ing plus object aan dhahnay ka hor intaan galin casharka waxaan rabaa fadlan janaalka waa janaal cusub haddii uu yahay markii kugu horeysay janaalkan aad daawato fadlan subscribe saar share like na dhag noogu sii taasi waa codsi waaye okay aan u gudgalno marka daraad waxaan ka soo hadalnay formula uu leeyahay ama uu ku shaqeeyo brace continuous tense waxaan subject plus am slash s slash r plus verb plus ing plus object aan subject waxaan wuxuu noqon karaa subject noun sidoo kale wuxuu noqon karaa subject pronoun noqon karaa am is r no waxa loo keenay haddii subject kasta man verbka ama saddexdan midkii ku haboon raacsiye haddii am ku haboonta am raacsiye haddii is ku haboonta is raacsiye haddii r ku haboon tahayna r raacsiye balaas lagu daro verb maxaa waaye verbki waa ficilki waa balaas lagu daro ing balaas object daraad waxaan dhahnay tenniska inuu yahay tennis koowaad waxa ii cadeynayaan dhahay ing ko iyo waxaan dhahay adverb of time oo ahaa now oo no ahaa labadan ayaa ii cadeynayaan inuu tennisku yahay tenniska koowaad uuna yahay tennis hadda dhacayo oo faraha lagu hayo inuu yahay waxa ii cadeynayaan dhahay ing iyo nowdan haddii jumlada ama tenniska laga waayo labadan midkood ing muhiimadu waxa waaye ing in laga waayo now adverb of time waa laga waayi karaa laakiin adverb of time waxa lagu cadeeyaa wuxuu yahay in lagu muujiyo micno lagu sii qurxiyo laakiin muhiimadu waxa waaye haddii ing laga waayo sentence-kaasi ama jumladaasi ma ahan tennis koowaad ee brace